waa macallin xamaasadiisu taageerayaashu ay ku tusaaleyn jireen Jose Mourinho ama The Special One isagoo daayar ayuu ka hortagay macallimiin khibrado u leh leelinta kooxo waaweyn isagoo hogaaminaya xulka gobolka Mudug oo ka qaybgalay koobkii lixaad ciyaaraha gobolada Puntland oo garowga martigelisay Asad Cabdiraxmaan Axmed oo loo garanogay Asad Abu Diyaabi ka hor inta uusan noqon macallin xagee ka soo bilaabay taariikhdiisa isboorti yaranteennii kubadda waxaan ku dheeli jirnay garoon la oran jiray Sabiixato iyo Ciid Guduud magaalada Gaalkacyo asxaab aad u tiro badan oo markaa childhood isla ahayn dhalinyaro yaraanteennii baa halkaas kula dheeli jirnay oo runtii xaafadaas dadku badan waxay u yaqaanaan qaamidii waxay ka tirsan tahay xaafadaha magaalada Gaalkacyo gaar ahaan xaafada Israac bay ku dhex taallaa garoomadaas aan ku dheeli jirnay koob baan qabsan jirnay xilligaas oo Jirooniya kooxaha xaafadaha xilligaas ay ka soo qayb galaan kooxahaas xilliyada dhisnaa kooxihii ugu adkaa waxaa ka mid ahaa oo markaa xilligaas kooxihii Daraawiish Inchi waa ka mid ahayd kooxda Daraawiish oo u dheeli jiray Hanfade oo saaxiibka channelkan iska leh waxa ka mid ahaa qaamidii oo markaa ayuu u dheeli jiray qaamidii Siinay baa ka mid ahayd Dhameyska biyaha ka mid ahaa waxa ka mid ahayd Fuluja ka mid ahayd Saxan Soxo tiimam badan oo xilliga dhisnaa oo waxa jiray runtii ciyaaryahano badan oo gobolka hadda magac ku leh ay ka soo baxeen kooxihii anigu markaa aan u soo dheelay xilligaas qaamidii bay ahayd oo kooxda aan ka soo baxay xilligaas oo aan mar boorta xataa mar u ahaayo lagu magacaabo David Seaman bay ugu magacaabeen boortaha Arsenal kadib garabka difaac baan noqday oo garabka midig ah difaac baan ka dheeli jiray in muddo ah kooxo badan oo xaafada ka tirsanaa oo runtii aan soo kala dheelayna waa jireen sida kooxdii FC Dhuxuley loo yaqaanay saaxiibkay oo kabtanka u ahaa Maxamuud Cabdi Cali Nigeria sidoo kale Dr. Maxamed Bashiir Ubayd baa ka mid ahaa Allahu naxariistay saaxiibkay Saciid oo runtii hadda naga maqan waxa kale oo kooxda qaamidii xiliyadaas kabtan u ahaa Axmed Cabdirasaaq oo dadku u yaqaanaan Dhibic oo runtii kabtankeena ahaa sida Maxamed Xasan Cali Indhaxreer asagoo kabtan buu ahaa Cabdinaas Maxamuud Jaamac Cabdinasta asagana kabtanadii soo maray oo xilliga kooxda Maxamed Daahir baa ka mid ahaa Abwalid baa ka mid ahaa kooxaha kabtanka xiliyadaas hayay runtii koobab qurux badan baa la qaban jiray koobka waxa xasuustaa saaxiibkay oo qaban jiray oo Cali Ciido nin dhahan oo hadda wadanka Zambia ku nool runtii koobkaas kadib kooxuhu waxay soo barteen inay Serie B leelaan marka xaafadii laga soo tago Serie B baa la ciyaari jiray Serie B-dii ciyaaryahan kasta laacib wuxuu ka soo baxay xaafadiisa kadib koob weyn baa waxa lagu qabtay meesha la yiraahdo Cawaale Stadium garoonka hadda casriga ah koobkaas waxaan u dheelay xilligaas oo boorta ahaan aan ugu dheela kooxda Inter Africa oo dheeli jiray macalinka xulka Puntland hadda Ibrahim Cabdi Cali Ibrahim Khalar Jaafar Yuusuf Cabdalla inay dhihi jireen Jiir koox aad u adag oo xilligaas Salmaan Khalar Liibaan Khalar koox aad u adag oo xilligaas macnaha koobkaas final timid oo unbeaten ahayd waxay ku dheeli jireen Chelsea cadaan ah bay ku dheeli jireen kooxda Inter Africa waxa final la yimid kooxda Inchi oo markaas ayaduna aad u adkayd oo dalbiyeeray u dheelayeen iyo Farisay oo markaas noqday tobaskooraha koobkaas runtii waa waqti mataqaanaa xasuus mudan xilliyada hadda ka sheekaynayo Abu Diyaabi oo daafac iyo goosh ku fiicnaa xilligan waxa uu hortaagan yahay albaabka garoonka Cawaale oo ciyaaryahan walbo dardar iyo dadaal dheer ku soo bixiyo garoomada xaafadaha halkiisa ka sii wata rumeynta riyada xirashada maaliyadda mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee heerka koowaad ka hor intaan macalinka aan noqon naftigeeda kubadda waa dheeli jiray oo qofka kubadda macalinimadu marna wuxuu ku bartaa buug iyo qalin marna asaga experience ciyaaryahan ahaan jiray sida mataqaanaa Zinedine Zidane oo kale kadib uu macalin noqdaa marka anigu waa dheeli jiray oo runtii kooxo badan oo xaafadeena baa u dheeli jiray jirka dhisan baa caafimaad ku jira aan laftiga xulka goolka mid waa u dheeli lahaa laakiin in jiri baan galay kooxda Rio Team Serie A kulanka ugu horeeya ku dhaawacma kadib macalin baa iska noqda haddii uu ku hungoobisay ciyaarista kubadda cagta Asad ayaa la soo baxay hibe ay adag tahay in goor hore lala soo shirtago waxaanu dhabarka u ritay mas'uuliyadda leelinta carbinta iyo jirdhiska kooxo ay ka mid yihiin RBSX Rio Team iyo kooxda kubadda cagta Somtel dadku badan waxay ugu barteen majaajilo
oo nin dadka qosliya ah balse hadda ka hor waan inii sheegay macallin baan ugu ahaa oo dad badan baa ugu qoslo yiri goorma macallinka noqota oo dadku sababtoo aad uma yaqaanaan uma aqoon dad dhifa maahe xilliyadan macallinka ahaana dee waa 2009kii 10kii 11kii iyo 12kii iyo 13kii kadib waxaan noqday macallinka kooxda qaamidii oo xilligaas kooxdayda ayaan soo abaabulay oo ahayd kooxda markaas badanaa seera aad ka soo gashay xaafadda qaamidii tiimka qaamidii kooxdaas seera aad waxa ka soo galay Axmed Cabdullaahi Qurbac عيسى محمد عيسى توريس شافعي شاركي dhalinyaro badan oo xilliga abwalad baa kamid dacal baa kamid dhalinyaro badan xilliga ka soo gashay mataqaana Syria ayaga oo khatar noqotay barnaamijka inta la jeclaaday kooxda kadib waxaan macallin markaa u noqday kooxdii weyneed ee RBS oo hore loo oran jiray kooxda Ria Team kooxda RBS xilligaas waxay iska ahayd team regulation oo burburay waa soo dhisay kooxdii runtii magac baan u yeelay xiliyadaas Yusuf Carab laftigiisa oo wareysan jiray anoo macallina oo dadku badan ay yaqaanaan Jose Mourinho xilliga Mourinho ka csanaaday ahayd koob badan baan final keenay laba koob isku xigtaan kooxda final keenay abid final markii ugu horeysay timaado balse labada koob macalfan waa laga qaaday kooxda Hombobaro iyo kooxda Comset xiliyadaas koobkaas iga qaaday kadib waxaan noqday laakiin labada koob waxaan qaatay macalinka ugu fiicnaa the best coach joogtaynta guulaha istaba jooga macallin Asad ayaa soo jiitay indhaha khubarayaal isboorti oo xilligaas ay hortaalay su'aalo ay u badnaayeen cidda hogaamineed xulka gobolka Mudug warqad dikreetaa ka soo baxday maamulka isboortiga gobolka Mudug iyo wasaaradda shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha oo xilligaas oo wasiirka ahaa Indho Guran iyo Axmed Gacma Dheere xilligaas warqadaas waxa ku qornaa in aanu macallinka gobolka Mudug noqday tartanka lixaad ee koobka gobolada Puntland markaas ayuu noo bilowday waxaan ahaa macallinka ugu yaraa xilliga oo ka soo qayb gala heer gobol gaara macallinka ugu yaraa baan noqday oo runtii koobka gobolada Puntland macallimiinta weytay macallinka ugu yaraa waxaan la galay group Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo Mudug baa isla galay Highland iyo Karkaar iyo Bari iyo Nugaal waa isla galeen kooxda runtii xilliga waxa la oran karaa Mudug xilligii ay waadkayd ciyaaryahanada aad hadda qaarkood ay wada maqan yihiin oo halkaan ka wada salaamayo xulka xilligaas aad buu adkaa Fahad Muuse Jaalle difaaciyada hadan ku sheego Fahad Muuse Jaalle kamid aha Afbalaar Majaroor Sade Cabdishiid Cali Qood waxa kale oo kamid aha ciyaaryahanadii dheeriyo xilligaas Jaani oo ahaa kabtankii kooxda Ibrahim Qoor Faras حامد وردير الله ونحرسته أو نقضي عياريان كإيدر يا قوش إذا فرحنا قوش وهرسي قبل كسول يقدلي عيسى محمد عيسى توريس بكم ذاها عبد الله عبد علي عبد الله هبس بكم ذاها عبد الله ببرة كم ذاها واحد كم ذاها شون وعياريان هيرك كوبات كديلا هريالكم قدشوا بكم ذاها بشكا كم ذاها محمد دعالة كم ذاها يور حاج baa kamid aha Farxaan Muuse Salwe baa kamid aha ciyaaryahanadii markaas aan watay aweys runtii hadaan dad waa tirinaya runtii waxaan u maleynayaa inaan soo koobi karin xilligaas gobolka Mudug oo ahaa Brazil oo ciyaaryahanada aad u fara badnaayeen xulka gobolka Mudug runtii ayadu ciyaaryahan fiican joogan oo magaalada ciyaaryahanada badan tahay baan kuwa soo qaadanay runtii kuwa dheeliya kuwa fadhiya isku mid bay ahaayeen xilligaas halkaan aad baan u wada salaamaya Cabdixsalaam baa kamid ahaa Saadiq Yara kamid ahaa ragaas runtii xulku aad buu u adkaa xilligaas waxaan la galay gobolka Sool oo Cabdisalaan Dhiidhiyo Axmed Nabahaye oo runtii aad u ag difaacooda wararkooda oo kabtanka weynaa oo lagu xasto xulka Puntland Cabdisalaan oo xilligaas uu leelayay kulankan isku horeeyay runtii wareysigii aniga macalinka waana la wareystay kooxda Sool waxa watay Abshir Calooley oo noqday macalinkii Soomaaliya la siiyay biladaas koobka gobolada Soomaaliya lagu hayay magaalada Garowe wuxuu final keenay gobolka Bari macalin Abshir kadib waxa hal iyo uga qaaday gobolka Banaadir runtii macalinkaas oo ahaa macalin khibrad wanaagsan Abshir xilligaas
wuxuu noqday macalinka gobolka Sool abshir runtii de macalin experience leh fiican wanaagsan baa iyo teamkii adag ana mudug oo adag baan watay kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday ciyaartaas 2-1 maalin jimcaad ahayd dadkuna isku soo baxeen runtii pressure-kayga aad buu kacsanaa aad baan ugu faraxay badintaas aan badiyay goolka ugu horeeyay waxa ay dhaliyay Xamed Dheer oo garab ka dheeliyay goolka labaadna Ciise Torres baa ay dhaliyay ciyaarta Rooso baa ka dhacday oo waxa Roosadaas qaatay Axmed Abahaye qaatay markaas kulanku aad buu adkaa kulanka kale ugu xogayna waxa la dheelay Zanaag oo iyaduna aad u adkayd oo team markaa kacsan ahaa hal iyo eber baa iyaduna uga badiyay kadib waxaan la dheelay oo anoo soo baxay markaa groupka soo baxay kooxda Cayn gobolka Cayn waxa macallin oo ahaa Caqaar baa oo ahaa runtii de kooxdaasna waxa uga badiyay 2-1 iyadana waxaan noqday macallinkii ugu horeeyay mudug ku soo baxay 9 dhibcood oo nadiif ah balse waxaan ku haray semifinal waxaana xilligaas reebtay semifinalka gobolka Karkaar ayaa xilligaas koobka macnaha semifinalkiisa iga soo reebtay macalinka ugu wanaagsanaa baa noqday ciyaaryahankii gool dhalinta qaadayna wuxuu noqday Ciise Torres runtii aad baan ugu faraxsanahay waqtigii waayaha sports oo ay soo xusuuseen hanfada sports waan iga mahadcelinayaa waayaha macalin Asad halkaas kuma hakan xilli uu safar ku gaaray wadanka Zambia ayaa kooxo ka dhisan caasimadda Lusaka ayuu markale shaqadiisa macalinimo inaanestiisii the special one boorka ka jafay koobna ku guuleystay aniga 2012 kadib waxaan baxay wadanka Zambia waxaan macalin u noqday xilligaas waxa ka uu soo dhaweeyay team la oran jiray Santos oo halka ka dhisnaa teamka Santos ciyaaryahanada u dheeli jiray qaar gobolka mudug bay ka soo jeedeen sidii kabtankii kooxda markaa Santos Maxamed Muxiidiin oo loo yaqaanay Maxamed Yare iyo Cabdicasiis Xasan Quruuf Hurfakaaka oo runtii ahaa Hurfakaaka ninkii kalifay inaan koob ku qaado wadanka Zambia koobkii ugu horeeyay runtii aad u yaqaanaan bahda sports gobolka mudug Hurfakaaka wuxuu noqday ciyaaryahanada ugu khatarsanaa ee soo mara gobolka mudug wuxuu ahaa top scorer 9 laga boqo khatar ah oo ahaa xilligaas kadib waxaan alfaday inuu ciyaaryahankaas anigu aan macallin u noqdo waxa kamid ahaa ciyaaryahanadii kale Cabdifaax Tartaraaye oo runtii STG lagu xasuusto ciyaaryahan asaguna adag ahaa markaas Tartaraaye Cabdifaax Maxamed Diiriye dhamaantood halkaan waa ka wada salaamaya ciyaaryahanadaas koobkaas waxaan ka qaaday xilligaas isla koox ayaduna aan macallin u noqday Lusaka Stars ayaduna runtii waxa teamkayga labaad kabtanka kooxdaas Lusaka Stars runtii wuxuu ahaa xidig qaab ciyaariidkiisu aad u wanaagsan yahay qofka soo macallin oo jeclaanayo oo runtii xiliyada adag ka fujinaya oo runtii gool dhalintiisu shabaq ayaa asaga la kala celin jiray good finish ah runtii ciyaaryahankaas Cabdiqaadir Sultan Maxamuud Cilmi Calas Cabdiqaadir Sultan halkan ka salaaya kabtanka xushmad iyo karaamad baan u hayaa kabtankaas ayaa kooxda Lusaka Stars kabtan u ahaa waxa kale oo leeli jiray ciyaaryahanada khatar ah sida Mahad kulmiye ahaa ciyaaryahan khatar ah Saadiq Yare Cabduus oo runtii ciyaaryahanadii kooxda Lusaka Stars ahaa waxa kale oo kamid ahaa Somali Faisal oo runtii legend ah oo sporti ah oo xiliyadaas ahaa ciyaaryahanada ugu kacsanaa ee dalka Zambia magaalada Lusaka waxa kamid ahaa Ishaq Saadam Jaamac waa kamid ahaa ciyaaryahanadaas oo kooxda Lusaka Stars ay ka dhisnayd الله نحرسته وحكلوا كم إذا طالدو أو هذا نجا مكان محمد بورت ويقانين رنتي ليجند ديسكاس أول وسلام يا عبد الحكم بقى كم إذا كوحدة Lusaka Stars كده بحكي على وطن كساوث أفريقيا سفر عن بحي كوحيه إلى هذا وادي سنين مقالودي كده سنين Lusaka Stars لما وسلام يا سيدو كله مقالودي كإندولا ayaan sporti karsana waa salaamaya aad baan salaamaya ciyaaryahanadii dhamaan intii magacayga muuqayga taqaana intaan macallin u noqday runtii aad baan wada salaamaya sportiguna runtii waa isdhexgalka bulshada xilligaas wixii ka dambeeyay macallinka ayaa isu bedelay majaajiliiste waxaanu ka soo muuqday riwaayado badan soo boqdo maxay tahay manama kharashka haystaan oo team galiyo kharash gal team kartaa lagu baxariisid waxa meelaha isbitaalada dugsiyaasha soo hormar weeyda meelaha musulka ilaahay meelaha iskriin kulgu cunay soo hormarid waa team soo hormaraya harata aan baxariisiyo nolol baabiyo saacadano practical laga dhigtaan practical Yusuf Maxamed Axmed hanfada sports galkacyo